Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan. Waa channelkii aad uga barateen qisooyinka jacaylka ee taxanaha ah, arrimaha dhalinyarada ee la xiriira jacaylka, xigmado, mawduucyo dhiirigelin ah, motivational topics oo kor u qaadi kara khibradahaada ku aadan horumarinta nolosha. Maanta halkan waxaan idinku soo gudbinayaa mawduuc aad u xiiso badan oo la xiriira jacaylka iyo maseerka, kaasoo ah: sax miya in jacaylkaada aad ka maseersiiso si aad u xaqiijiso dhab ahaanshaha jacaylka uu ku qabo? Mawduuca ku saabsan maseyrka waa mawduuc aad u ballaaran oo saameyn weyn ku leh jacaylka iyo arrimaha la xiriira. Inta aanan u guda gelin mawduucan ku magacaaban ma sax baa in laga maseersiiyo qofka si loo tijaabiyo jacaylka uu ku qabo in uu sax yahay iyo in kale, waxaan jeclaan lahaa in aan si kooban u sharaxo micnaha maseyrka iyo waxa uu yahay. Ugu horreynba waxaan dul istaagaynaa su'aasha ah: waa maxay maseyr? Maseyrku waa dareen xanaaq leh iyo murugo wata, kaasoo aad dareento marka qof aad jeceshahay uu aad u sii xiisaynayo qof kale amaba ka helo. Waa dareen welwel iyo walbahaar leh, kaasoo saameyn xooggan ku yeesha shucuurtaada ama dareenkaada, waxna ka beddela habdhaqankaada iyo weliba qaabka aad u fikirto. Maseyrku waa wax aad u xanuun badan ee mararka qaar soo wajaha ruuxa sida dhabta ah u jecel ruuxa kale, ha ahaada wiil ama gabar. Waa dareen xanuun badan oo laga yaabo inay kuu diido hurdo iyo hoyaad, halka dadka qaarna uu ka hor istaagi karo rabitaanka cuntada iyo fawaakihaadka kaleba. Dareenka noocan ah waxaa si fiican u garan kara amaba u yaqaana qofka ruux uu aad u jecel yahay ku arka amaba ogaada inuu xiisaynayo ruux kale, wuxuuna qofkaasi isku arkayaa amaba u muuqanayaa qof hanti uu lahaa laga dhacay, haddana aanan ku doodi karin ama u dacwoon karin sidii uu ku soo ceshan lahaa hantidii laga dhacay amaba lagala wareegay. Waxba yuusan ka hadlitaanka mawduuca guud ee maseyrka ila sii fogaanine, aan u soo laabta mawduucii gaarka ahaa ee hoos imaanayay isla mawduucan guud ee maseyrka, kaasoo ahaa: ma sax baa in qofka laga maseersiiyo si loo xaqiijiyo in jacaylka uu ku qabo ama ay kuu qabtaba uu dhab yahay iyo in kale. Haddii aad tahay qof dumar ah ama gabar ah, mararka qaar waxaa dhacaysa in aad indhaha saarto wiilkii aad jeclayd oo la socda, la taagan, la sheekaysanaya amaba la qoslaya gabar kale. Durbadiiba waxaa qalbigaada ku soo dhacaya su'aalo aad u fara badan oo ay ugu muhiimsan tahay: talow maxaa ka dhexayn kara labadan qof? Ma dhici kartaa inay yihiin laba qof oo ay ka dhexayso macaarifo, dirisnimo, ehelnimo iyo asxaab kale, ama asxaab hore oo iskoolkii wada dhigi jiray? Si kastaba ha ahaatee, waxaa durbadiiba oogada jirkaada ku saaqaya dareen aad u xanuun badan oo kugu abuuri kara niyad jab iyo in aad noqotay ruux laga xiise dhacay oo laga daldoorsaday. Waxaana kuu bilaabanaya run ahaantii nolol mugdi ah iyo waqti cidhiidhi ah. Sidaasi si la mid ah, haddii aad tahay wiil oo aad indhaha saartay gabadhii aad jeclayd oo la sheekaysanaysa amaba la qoslaysa wiil kale, ayaa waxaad dareemaysaa dareen la mid ah amaba ka sii xanuun badan kan ay habluhu dareemaan. Waana dareen si fudud qofka looga dareemi karo. Sidoo kale, xilliyada qaar waxaa dhici karta qofkii aad jeclayd inuu si ula kac ahi u sameeyo ficillo adiga kaa xanaajin kara, sidii uusan dan ka lahayn, balse uu doonaya inuu adiga kugu tijaabiyo in jacaylka aad u qabto uu dhab yahay ama in kale, asaga ama iyada oo tixraacaysa qaabka aad uga falceliso wixii uu sameeyey. Haddii aad ficilkaasi ka xanaaqdo ama aad ka gubato, kana weydiiso su'aalo badan adiga oo caraysan ama xanaaqsan, wuxuu halkaasi ka ogaanayaa amaba ay ka ogaanaysaa in aad qofkaasi si dhab ahi u jeceshahay. Waa mid ka mid a xirfadaha ay isticmaalaan qaar ka mid a dhalinyarada maanta casriga ah jirta, wiilal iyo gabadhaba, balse aan ahayn hab wanaagsan oo lagu xaqiijin karo qofka inuu ku jecel yahay ama ay ku jeceshahay iyo in kale. Gabar ka mid a asxaabtayda ayaa ila wadaagtay qiso aad u xanuun badan oo soo martay waayihii jacaylkeeda. Waxayna si qoto dheer iiga warantay dareenkeedii ku aadanaa qiso ku saabsan maseyrka caynkaa ah oo soo maray. Waxay ku bilowday hadalkeedii sida tan: waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan wiil jacayl u qaado.
muddo bay igu qaadatay inaan u soo bandhigto jacaylkayga maadaama aan ka baqay in aan u muujiyo dareenkayga balse kama dambayn qaab fariin qoraaleed ah baan ugu soo bandhigtay jacaylkaygii isagana wuu iga aqbalay si fudud oo aan shuruud ku xirnayn waxay ahayd maalintii iigu farxadda badnayd noloshayda maadaama wiilkii aan jacaylka u qaaday uu si fudud iiga aqbalay codsigayga waxaa ii bilowday jawi aad u farxad badan oo ka mid noqday noloshayda runtii jacaylka aan u qaaday dartiis ayaa wax weyn ka beddelay qaabkaan u fikiri jiray iyo habdhaqankaygaba runtii in muddo ah markii aan u wada soconnay si farxad iyo daacadnimo ku jirto ayaa wiilkii aan jeclaa wuxuu la soo baxay habdhaqan aan aad u necbaystay iina xanuunjiyey runtii kaasoo ah in uu la hasaabo amaba la sheekaysto hablo kale markii hore wuu inkiri jiray markii aan ku qabsaday arrinkaasi balse markii dambe wuxuu la soo baxay weji cusub wuxuuna igula hadlay hadallo qalafsan oo ay ka mid ahaayeen noloshayda xor baan u ahay iyo adiga ima xukumi kartid iyada oo sii wadatay qisadeedii murugada badneed waxay tidhi waan dareemay inuu iga xiise dhacay oo uu helay gabdho kale kama dambaynna waxaa soo afjarmay xiriirkii jacaylka ee naga dhexeeyey saasay tahay haddana in muddo ah markaan arko isaga oo la socda gabar kale ama la qoslayo meel baa i damqan jirtay markaas wixii ka dambeeyeyba ereyga jacayl waxaan aaminay inuusanba jirinba wax jacayl la dhaho waxaana go'aansaday inaanan mar dambe ku degdegin jacayl iyo madax xanuunkiisa runtii aad baan ula murgay qisada murugada leh ee ay iiga sheekaysay qisadan waxaan u soo qaatay in masiirku uu yahay wax jira qofka kuu masayrayina runtii uu yahay qof si dhab ahi kuu jecel oo aan jeclayn in uu qof kale kaa hantiyo ama ay kaa hantiso sida xaqiiqada ah sax ma aha in aad ku dhaqaaqdo falal ama ficilo ka masiirsiin kara ruuxa sida dhabtaa kuu jecel adigoo isleh bal xaqiiji oo tijaabi heerka jacaylkiisa ama jacaylkeeda ma qiyaasi kartaa dareenka xanuunka badan ee uu dareemayay qofkaasi ma qiyaasi kartaa niyadjabka ku imaan kara ruuxaasi halkaasi waxaa inoogu eg mawduucii ku saabsanaa ma sax baa in aad ka masiirsiiso qof si dhab ahi kuu jecel mawduucan waxaa idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinaya anigoo ah al-ustaad axmed diiriye afrax si aad ula socotay qisooyin jacayl oo taxano ah mawduucyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha dhallinyarada iyo kuwa la xidhiidha jacaylka fadlan ku xirna youtube channelkan haddii aad ku cusub tahay ha iloobin inaad subscribe dhahdo si aysan kuu dhaafin mawduucyo muhiim ah oo noloshaada si qaas ah u taabanaya waa axmed diiriye afrax oo idin weliba oo aad dunida ka joogta